kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobada aad ku daawan doontaan barnaamij wareedkeena waxaa kamid ah Jubbaland oo qeyradaan afka saartay iyadoo ka qaylinaysa qorshaha dawladda ee gedo ay ka wado dawladda federaalka ee Soomaaliya oo sheegtay in ay horjoogayaal ka tirsan kooxda argagixisada ee Al-Shabaab oo ah kuwa sare ay dishay maamul goboleedka Puntland oo shaqada ka joojiyay hay'ad la shaqeynaysay dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ka howlgalaysay deegaanada Puntland madaxweynihii hore ee Shariif oo si adag uga soo horjeestay qorshaha dawladda ay ku doonaysay inay ku hirgeliso arrimo badan oo mucaaradku ay ka soo horjeedaan qodobada kale ee barnaamijkeena ku daawan doontaan inta uu ku jiro hawadana waxaad ka mid ah xildhibaanada maamulka waqooyi bari oo la dhaariyay iyo doorashada maamulka waqooyi bari oo loo dhaqaaqay mucaaradka dawladda federaalka ee Soomaaliya oo la kulmay beesha caalamka iyo canaal kulul iyo waji gabax ay halkaasi kala soo kulmeen qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad barnaamijkeena ku daawan doontaan ee fadlan ku soo dhawow muuqaalkan sheergare saaxiibadana u gudbi markastana halkan ku tixno dowlad goboleedka Jubbaland ayaa markii ugu horeysay afka furatay iyadoo ka hadlaysa qorshaha dawladda dhexe ay ku wado in la dhiso Jubbaland cusub oo laga yeeleeyo gobolka Gedo maamulka Jubbaland ayaa ku eedeeyay dawladda federaalka ee Soomaaliya in magaalada Garbaharre ee gobolka Gedo ay ka wado abaabul ay maamul ugu sameynayso deegaanada Jubbaland maadaama dawladdu aanay aqoonsaneyn maamulka hadda jira ee Kismaayo Axmed Madoobe ka uu hogaamiyo kaas oo ka dhisan magaalada Kismaayo madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Axmed waa ninka lagu magacaabo Maxamuud Siyaad Aadan ayaa sheegay in Garbaharre ay joogaan howlwadeeno ay dawladdu u soo dirsatay kuwaas oo magaalada ka dhijinaya boorar ka turjumaya maamulka la doonayo in halkaasi laga yagleelo waxaan ka digaynaa waxa ka socda magaalada Garbaharre oo xadgudub ku ah jiritaanka Jubbaland waana marqaati kaga dhiganaynaa caalamka in cawaaqibka xun ee uu wado madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee halkaasi ka dhalan doona ay tahay mid uu asagu mas'uuliyadeeda qaadayo 100% ma jirto wax aan ka reeban doono arintaasi si aan uga hortagno ummadda reer Jubbaland waa isdifaacaysa haddii dawladda federaalka ee Soomaaliya ay sidan ugu soo duushay ayuu yiri madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Siyaad oo sii hadlaya idaacadda BBC-dana la hadlaya waxa uu sheegay in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay cadeysay qorshaheeda oo sana qarsooneen isagoo ka digay cawaaqib xun oo ku hanjabay inuu noqon doono mid daba dheeraada oo ka dhalan doona waxa ka socda Garbaharre Maxamuud Siyaad ayaa hoosta ka xariiqay in meesha ugu dambeysay ee la marsiinayo Jubbaland wax kasta oo loo geysto jiritaankeeda isagu uu noqon doono mid ka hortagi doona isla markaana gacmihiisa ku burburin doona wax kasta oo gada laga dhiso halkan dawlad ka dhisan oo dastuur ah ayaa jirta wax kasta oo dawladnimo ah oo waa u dhameystiran yihiin Jubbaland mana ogolaan doono in wax kale laga gees dhiso waxaan ka hortageynaa waxa ka socda Garbaharre anigoo qaadi doona tallaabooyin cadcad oo aan arintaasi ku joojinayno ayuu yiri Maxamuud Siyaad maamul goboleedka Puntland ayaa shaqada ka joojiyay hay'ad la shaqeynaysa dawladda federaalka ee Soomaaliya xukuumadda Puntland ayaa joojisay dhammaan shaqooyinkii ay gudaha maamulka ka waday hay'ad loo yaqaano Horn of Africa Consulting Firm taas oo ka howlgasha qaar ka mid ah dalalka Geeska Afrika go'aankan ayaa yimid kadib markii ay soo baxeen cabashooyin laga keenay habka shaqada ee hay'adan gudaha Puntland ay ka hirgelinayso sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay wasaaradda qorsheynta cabashooyinkan waxaa soo gudbiyay wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha Puntland iyo duqa caasimadda Carmo kuwaasi oo tilmaamay in howlihii hay'adani ay haysay ay yihiin kuwa u baahan in dib u eegis iyo hakad ku meel gaar ah la geliyo si loo hubiyo shaqadeeda wasaaradda qorsheynta ayaa intaa ku dartay in hay'adan ay ku xadgudubtay shuruucda ururada NGO-da ee Puntland isla markaana ay sameysay ururin xog aan sharci waafaqsaneyn taas oo jabinaysa xeerarka tirkoobka Puntland si loo xaqiijiyo eedeymaha hanti dhowrka guud ee Puntland ayaa laga dalbaday in hay'adan baaris dhameystiran lagu sameeyo waxaana hay'adan gudaha Puntland ka fulisay shaqooyin ay ku mataleysay dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale WFP gaar ahaan ururinta xogta dadkii ka faa'iideystay mashruuci Baxnaano go'aanka Puntland ayaa imaanaya xilli ay ka sii darayso xiisadda siyaasadeed ee kala dhaxaysa dawladda federaalka ee Soomaaliya kadib markii ay Muqdisho si buuxda ay u taageertay dhismaha dawlad goboleedka cusub ee waqooyi bari Soomaaliya taas oo Puntland u aragto mid ayada lagu kala goynayo mucaaradka Soomaaliya iyo beesha caalamka ayaa maanta ku yeeshay kulan xasaasi ah magaalada Muqdisho kulankan ayaa waxaa looga hadlayaa xaaladda xasaasiga ah ee magaalada Muqdisho ka taagan taasi oo ah mid cakiran oo u dhaxaysa mucaaradka Soomaaliya iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya
mucaaradka ayaa beesha caalamka waxa ay ka rabaan in madaxtooyada Soomaaliya ay diyaar u noqoto xal in laga gaaro arrimaha khilaafka ka taagan sida dastuurka iyo sidoo kale hanaanka doorashooyinka, taas oo mucaaradku ay doonayaan in beesha caalamka ay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku riixdo maadaama cadaadiskooda ay suurtagal tahay in Xasan Sheekh Maxamuud uu wax iska bedelo. Golaha samata bixinta mucaaradka ayaa si cad u diiday in madaxtooyada Soomaaliya kaligeed go'aan ka gaarto arrimaha doorashooyinka, waxayna ku doodayaan in loo baahan yahay heshiis siyaasadeed oo ballaaran si loo xaqiijiyo in si nabdoon dalka uga dhacdo doorasho la wada ogol yahay. Kulankan ayaa mucaaradku waxa ay ka sugayaan inuu noqdo mid horseedi kara in Xasan Sheekh Maxamuud uu soo dabco, taas oo ogolaado in gorgortan uu ka galo arrimaha muhiimka ah ee isku hayaan. waxaa sidoo kale suurtagal ah in dhinacyadu la isku soo dhaweeyo, waxaana kulanka mucaaradka kadib la filayaa in xubnaha beesha caalamku ay kulan la qaadan doonaan madaxweynaha Soomaaliya oo ay u gudbin doonaan arrimaha muhiimka ah ee looga baahan yahay. kulankan waxa uu ku soo aadayaa xilli siyaasiyiinta mucaaradka iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu wali u socdo wada hadallo, laakiin waqtiyadii u dambeysay wada hadalladaasi la cadeynayay inay yihiin kuwo aan ku taagnayn fara adag. markana magaalada Laascaano oo lagu dhaariyay xildhibaanada cusub ee maamulka Waqooyi Bari, waxaa maanta Laascaano shahaadada xildhibaannimo lagu guddoonsiiyey xubnaha golaha wakiilada dowlad goboleedka Waqooyi Bari Soomaaliya. liiska xildhibaanada oo saaka la shaaciyay ayaa ka kooban ilaa 83 mudane oo loo kala qaybiyey beelaha ku midoobay maamulka cusub ee Waqooyi Bari Soomaaliya, kaas oo halkaasi laga yegleelay, waxaana ka mid noqon doona 4 gabdhood halka 79 kalena ay yihiin rag. kusimaha gudoomiyaha maxkamadda sare ee Waqooyi Bari Maxamed Yuusuf Warsame ninka lagu magacaabo ayaa sidoo kale isla maanta si rasmi ah u dhaariyay xildhibaanada cusub ee maamulkaasi matali doona. xildhibaanada ayaa 37 ka mid ah waxaa laga soo xulay Sanaag, halka Sool laga keenay 30 mudane, sidoo kalena 16 mudane ayaa waxaa laga keenay gobolka Togdheer. kadib dhaarinta xildhibaanada ayaa waxaa si toos ah loo geli doonaa gudashada doorashada ee maamulka Waqooyi Bari, kaas oo hoggaanka maamulkaasi ama madaxweynaha lagu dooran doona. taasu waxa ay noqon doontaa mid lagu loolami doono oo musharaxiin badan ay u taagan yihiin. xildhibaanada cusub ee maamulka Waqooyi Bari ayaa lagu wadaa in kulankooda ugu horeeya ay ku soo doortaan hoggaanku meel gaar ah, taas oo dhacday in ninkii ugu weynaa ay isla maantaba iska doortaan si uu u hoggaamiyo. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday inay khaarijisay hoggaamiye sare oo ka tirsan kooxda argagixisada ah. ciidanka xoogga dalka ayaa ku guuleystay inay howlgal qorsheysan ku dilaan horjooga sare oo ka tirsan kooxda argagixisada ah, kaas oo lagu magacaabi jiray Xuseen Macalin Xasan sida ay shaacisay dowladda Soomaaliya. howlgalkan ayaa ka dhacay meel u dhow deegaanka lagu magacaabo Buur Dhuxunle oo 17 kiiloomitir waqooyi bari kaga beegan magaalada Waajid ee gobolka Boqol. ciidanka xoogga dalka ayaa ayaga oo duulaya xog sir aan ku socda waxa ay raad joog ku sameeyeen dheer ninkani, kaas oo xalay howlgal qorsheysan lagu dilay. horjoogaha sare ee ka tirsan kooxdan khawaarijta ah ayaa wuxuu ahaa nin aad iyo aad u dhibay dadka deegaanka oo dowladda federaalka ee Soomaaliya waqti dheer ay raadinaysay.